24 magaalo oo dalka kamid ah dalka dibadiisa ayuu qayb ka ahaa magaalada Nairobi-na waxay kamid tahay meelaha Soomaalida ay degan tahay oo aad u degan tahay oo jaaliyada fiican ay ku leedahay sida daraadeed ayaanan xooga u saarnay magaalada Nairobi inaan shirkan ku qabanno maanta. waa tahay waxaad sheegtay inaad la kulanteen jaaliyado badan oo Soomaali ah oo dalal kala duwan jooga maxaa idin ka soo baxay? runtii dadkii aan maanta la kulannay iyo dadkii kale gudaha iyo dibadda dalka aan kala kulannay waxaa nooga soo baxday in ummadda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay inay doorasho hal qof iyo hal cod ah wadankan ka dhacdo dhamaadka 2020ka. dadka qaarkii runtii uu ka aragti duwanaan karaa oo kala aragti duwanaan karaa culayska jira iyo caqabadaha jiro amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo mashaakilka naga haysta markay arkaan waa culays way soo jeedinayaan laakiin guud ahaan dadku waxay isku waafaqsan yihiin inay dalkan doorasho ka dhacdo doorashadaas oo xaq iyo maaragtay xalaal ah inay wadankan ka dhacdo ayay isku waafaqsan yihiin. dadka aad aragtidooda dhageysateen waa dad noocee ah? dhammaan qaybaha bulshada annaga waxa aan la tashanayno waa dadweynaha Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan haween leh dhalinyaro leh odayaal leh dhaqameed leh culummo leh siyaasiyiin leh iyo waxgarad maamulkii iyo dadka maamulayay leh intaba waan la tashanaa dad gaar ah oo taladeenu ay ku kooban tahay ma jirto ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda oo dhan waan la tashanaa. waa tahay talaabada tan idin xigta maxay noqonaysaa? talaabada tan noo xigta waxay noqonaysaa talooyinkan aan aruurinay oo dadka aan ka aruurinay iyo warka ayna siiyeen tirada badan iyo xogta ay nagu biiriyeen oo xog aad iyo aad u qiimo badan ah inaan ka sameeyno warbixintaas aan la wadaagno madaxda kale ee dalka si ay noola qaataan doorasho cod iyo qof ah. tan labaadna waxa weeyaan inaan uga faa'iideysano talooyinkaas iyo xogtaas iyo caqliga ay dadkuna siiyeen in aan maaragtay ku dhisno qorshayaashana mustaqbalka ah isla markaana ay hagto barnaamijyada ay guddigu qabanayaan mustaqbalka soo socda. marka aad eegteen ra'yiga dadka aad la kulanteen iyo diyaar garowgiinaba ma kula tahay in sanadka 2020 ay Soomaaliya ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah? walaal annaga guddi ahaan qorshaheenu hal ujeeddo ayuu leeyahay. ujeeddadaas waxa weeyaan 2020 dhamaadkiisa inay dalkan doorasho hal qof iyo hal cod ka dhacdo taas